بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وولكن أبو بكر وإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالين صحابة أيكو فليان أيا نبي صلى الله عليه وسلم وحوك دردار يسدح دردارا oo aad iyo aad u cajiib badan laga yaabaa inaan maqashay laakiin aadan u fiirsan macnaha nebiga uu ka wado. nebiga wuxuu leeyahay ittaqi llaha xaytuma kunt waatbici sayi'ati alxasanata tamxuha wakhaaliqi nnaasa bikhuluqin xasan. midka koowaad oo ah ilaahay ka cabso meel walba aad joogtid, keligaaga haddaad tahay, suuqa haddaad joogtid, haddaad iskuulka aad joogtid, haddaad shaqada aad joogtid iyo haddaad xaafadaada joogtidba inaad ogaatid ilaahay inuu kuu jeedo. taas ayaa laga wadaa. meel walba aad joogtid isku mid ayaa tahay, cibaadada ilaahay ayaad ku dadaalaysaa. dembi hadduu shaytaanka uu rabo inaad dembi samaysid waxaad ka fikiraysaa inuu ilaahay kuu jeedo, asiga ayaad ka cabsanaysaa. taas weeyaa midda koowaad. midka labaadna waxay tahay in dembi markaad gasho insaan ayaad tahay, waad qaldamaysaa, gafaf ayaad gelaysaa. marka aad qaldantid oo dembi aad samaysid inaad ilaahay gacanta aad u taagatid, aad dhahdid ilaahayow addoonkaaga ayaan ahay, ii dembi dhaaf, dembigaas ayaan galay. mar walba dembi aad gashid ilaahay gacanta u taago. ilaahay wax ka naxariis badan ma lahan, asiga weeyaa midka ugu naxariiska badan. midka saddexaadna waxay tahay dadka inaad ula dhaqantid akhlaaq wanaagsan. markaad aragtid inaad salaantid, mar aad u dhoola cadaysid, aad mar walba u qosashid. taas ayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam u ammaanay. qofka ugu khayrka badan waa midka dadka akhlaaqda wanaagsan ula dhaqma. walaalayaa saddexdaas aan ku dadaalno, dadkana aan usii sheegno insha allahu tacaala kuwa xadiiska iyo dardaaranka nebiga ku dhaqma allaha naga dhigo. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.